السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وإذن سلامة فجر وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن مغرب وناكسن وقت والبأيدين تهي وناكسن الحمد لله الذي أماتنا ثم أحيانا ثم إليه نشور وعسب إلهي نسو بريسي ما شاء الله تبارك الله مانتا ومانتي لبات رمضان كالوجرة. الحمد لله إلهي وقتي قال نسو قرسية رمضان نسو قرسية عافمادي عمر دير نسو قرسية إن شاء الله رمضان كان رمضان كيسا caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban allah nagu gaarsiiye allahumma aamiin maasha allah intaas waa intii ducada maasha allah tabaarakallah wadankeena u duceynaya oo ilaahay uu nabad noo sii wadankeena insha allah nabadaa baahi u qabnaa soomaali ilaahu isku soo uruuri oo isku soo dum allahumma aamiin taasna waa tii wadanka alxamdulilah nin walba meeshuu ka baahan yahay baahi ilaahay ka tiro maanta waxaa noo wadaa qiso maasha allah ku saabsan arrimaha bulshada ama ku saabsan noo wadaa maasha allah قصص من القصص الاجتماعية ما شاء الله تبارك الله قصدا waxaa ka sheekeynaysa gabar kamid gabdhahaas walaal lixdaas gabdhood isla dhashteen walax gabdhood isla dhashteen waxay leedahay mar walba markaan gurigeena iskugu imaano ama guriga hooyada iyo aabaha marka la iskugu imaado isbuucyada waqtiga wadankaanay ka dhacday qiso aan soo fasiray waaye waqtiyada ijaazooyinka jumcayaasha markaan iskugu imaano gabdhaha waxaa ku jirtay leedahay hal gabar oo walaasheen oo maasha Allah tabaaraka Allah inteena kale waa dacwo badan nahay ama habartaa loo soo dacwoona ama anaga is haysano ama ninka dhib laga sheeganayo ama sodohda laga sheeganayo ama ninka gabdhaha la dhashtaa ka sheeganayna yacni cariiri oo reerka xaggiisa naga haystay leedahay maasha Allah tabaaraka Allah oo ninka dhinaciisa ka dhibanahay ama problemyo qof walba dhib iska haysto cariiri adduunye gabadhan walaasheen ma dacwooto ma hadasho ninkeeda ma ka ishtakooto awlaadeed ma ka ishtakooto qof waxa waa maasha Allah tabaaraka Allah nolosheeda dhan ay kaamil u tahay maasha Allah tabaaraka Allah salaatu ala rasuulillah maalmaha kamid waxa u dhabagalay ina walaashay wareystay leedahay oo dhaho maxaa kugu dhacay maasha Allah qaladna ha ii fahmin inaan ku xasdaayo oo malaynin gabdhahan kale dhan way dacwoonayaan tu ilmaheeda ka dacwoonayto sudohdeeda ka dacwoonayto ninkeyga dacwoonayto iyada cariiri oo ninka ku haayo guriga ama masaariifta ama waxyaabaha laga dacwoodaa adi laakiin maasha Allah tabaaraka Allah qofiya waxaa tahay muddo ku fiirinaaye waxaan ma noqon karto xad wax carabiga dhahan ama xad inuu nasiibkaada fiicnaado xas waxaa la dhahaa ama xad waxaa la dhahaa nasiib fiicnaasho ama hebel way nasiib fiican tahay oo kaleeto ma la dhihi kare aan dhahayay tiri waxaan rabaa inaan ogaado sirta kuugu duugan yacni fi qabii'a ay leedahay qabii'a maxaa laga wadaa يعني wax asraare oo sir oo adii ilaahay idinka dhaxay inaa samaysato qofka bini'aadamka uu samaysto taas la dhahaa qabii'a mumkin qabii'a ku jirto ee qabii'adaas noo sheegaan dhahayahay tiri maasha Allah tabaaraka Allah gabadha walaasheed weydiinaysa dhahayso walaa waxay leedahay marka hore way iga carartay inay sirtii sheegto ma ogoleen way ka dhuudhuumatay yani hadalkii baabaasaysa ii gashay ama in iga khariso wax oo iyada iyo rabbigeeda ka dhaxeeyo markaas aniga waxaan dhahay leedahay si fiican ugu adkeey waxaan dhahay walaalay yani xasad miiga ahan laakiin maasha Allah yani milicsi camal yani mar walba adoo dacwoonaysa ama ninka dacwoonaysa ama ilmo ka dacwoonaysa ama wax kale ka dacwoonaysa xataa shaqada ma ka dacwooto lixdeenan waa wada shaqeynaa dad muwadafiin ahaan muwadaf waxaa la dhahaa qofka dowladda u shaqeeya ama iskool ha ka shaqeeyo ama isbitaal ha ka shaqeeyo ama reception ha ka shaqeeyo dad oo wada shaqaystaan nahay naagaheenan adiga qof dacwo laga maqla ma tihid hooyadeen uma dacwootid aabaheen uma dacwootid yacni noloshaada nolol oo kuu dhan waayo oo kaamil ku sida ay ku dhacday sirta inaa ii sheegtid aan rabaa walaashay dhowr mar way iga qarqarisay leedahay qabii'ada weydiiyey adiga ilaahay idinka dhexeeyo ama sirta adiga iyo rabbigaada idinka dhexeeyo anuu ku xasdeynin inaa iiga sheekaysidaan rabaahan dhahay tiri waxay dhahday ani wax hadda xasuusta ma lahan hadda ka hor markaa iskoolka dhigaayo waxaan dhigayay ay leedahay shanaad iyo lixaad yacni dugsiga hoose aan dhigayay waxaa safal khaamis wasaadis waxaan dhigayay leedahay tarbiya faniya aan dhigayay iyo dadka oo ardayda qofka baran waayo maclimada barto dumaystikada ay dhigtaa iyada maclimada oo gabadha oo su-aalaha la weydiinayo waayo oo laleeyahay waxa kuu qarsoon oo adiga ilaahay idinka dhexeeyo noo sheeg waxay tiri waxaan bari jiray dumaystikada ardayda bari jiray ama waxa la dhaho tarbiya faniya sida waxa loo kariyo sida waxa loo qoro sida waxa loo sawiro waxyaabaha toliinka ku saabsan taasaa dumaystika af Soomaali lagu dhahaa af Soomaali dumaystika lagu dhahaa carabigana tarbiya faniya waay
iyo sawiryaasha see looxad cad usoo gadataa ama boor cad see usoo gadataa sawir gacmeedka see u sawirtaa tarbiya faniya kaasaa la dhahay ka shaqeysaa markaasaa waxay dhahday mar walba waxaa arki jiray maqlaya macalimiinta oo qolka maclumaadka markay waqtiga break timeka ama waqtiga oo fasaxada ay kusoo kulmaan gabaday xamanayaan ee mar walba ka sheekeeyaan waxay dhahaan way ureysaa timaheeda way uraayaan way soo shiirtaa saan waay kan waay gabadhiyaa raadiye fasalka waxaa ka helay dhahday qaybtii 6aadaan ka helay gabadhii waa arkayay tiri madaxeeda ficlan waxaa kasoo uraaya subag saliid macsaro waxyaabaha saliidaha oo qamaaj yani markaad mujtamaca soo dhexgalaysa iskoolka ilmaha loo diraa waa inaa loo labisaa la nadiifiya yani gabadha si oo wax cajiibaha oo kasoo uraya ardaydana way xantaan macalimiintana way xantaan qof loo daran yahay waaye qof wax taqaana malaha waxna si loo qoro ma taqaana sida loo aqriyana ma taqaana fasalka 6aadna way dhigataa maasha Allah tabaaraka Allah gabadhiya ihtimaam siiyay aniga badanaa xisooyinkayga waa xisooyin gaagaaban oo yaryar yani isbuuci 2 jeer meelahaasaan ku leeyahay inta kaleeto waa imaadaa wax diyaarinaan ku jiraa gabadhiyaan shaqo ka dhigtay ay leedahay gabadhii inaan ku mashquulaan shaqo ka dhigtay gabadhiyaan la hadlay kow shuqliga shaaqil waxaan ka bilaabay leedahay ama dadaalkayga waxaan ka bilaabay dharaan usoo gaday maryoolka wuu ku jeexjeexan yahay wuu ku uraaya iyada dhan way soo habcaysaa yani ratha ah kasoo ureysay ku leedahay iyo maxaa la dhahaa ratha fil hindaam iyo fil xataa tacliimta xataa saasay ka tahay oo dhahaa ay leedahay maxaa la dhahaa naagtii qisad ka sheekeynaysay gabadhiyaa ma ku mashquulay dharaa usoo galay dharka daaqiliga dharka waxaa usoo gaday iskoolka lagu bedeshta maryoolka ama uniformka waxa anaga af Soomaaliga ku dhahno aan usoo gaday waa ka bedelay timaha wax lagu xirxirtaa usoo gaday shabaasaadka biglooyina usoo gaday gabadhii waxaan ka dhigay dhahday nooc kaleeto shaamba usoo gaday waxa usoo gaday saabuun gabadhii waa wareysta waxaan dhahay maxaa kugu dhacay hooyada aabaha waxay tiri hooyada aabahay waa isfureen hooyadeena ninay guursatay aabahayna naagu guursaday ayeeyadayaan la jooga ayeeyadayna qof oo waayeel ah waaye maasha Allah saas xaaladeeda tahay waa fiiriyay waxbarashadeeda hoos waa ay dhahday gabadhiyaa ku mashquulay wixiyaan siiyey maalin walba kan soo gasho qofii og malahan dhahday ani xanta leh kasoo maqlay qolka maclumaadka ama qolka dadka oo macalimiinta naagaha ee wax oo iskugu imaano ku qaxweysan aan kasoo maqla xanta gabadha meeshaas kasoo dhaxbaxsaday sidaa fasalada aga raadinayo waa hela fasalkii 6aad ee noqotay gabadhii maasha Allah way faraxday way isbedeshay gabadhii waxaan ka dhigay wax kale kasoo saaray ay leedahay sidaa ugu mashquulsanaay mar walba marka break timeka ku jirno oo waqtiga fasaxada waa u daakiri jiray maadooyinka dhana u daakiri jiray gabadhii waxay noqotay maasha Allah tabaaraka Allah gabar isbedeshay oo si kaleeta noqotay maclumaadaas waxay aga sheekeynaysaa oo su'aalaha weydiisay walaasheed maasha Allah tabaaraka Allah waxay dhahday markii dambe gabdhihii xataa waa noo weynaadeen oo iyada ay dhashay gabdhihii waa iwa weynaadeen 20 sano ay gaareen 2 gabdhood la ii guursaday gabdhaha xataa walaasha su'aasha weydiinaysa waxay leedahay xataa gabdhahaada iyo wiilasha qabaan waxay yani huduu ah ka muuqda ama deganaansho yani reer degan oo buuxo oo ninkaadii aamusan yahay adiga aamusan tahay awlaada wiilasha maxaa la dhahaa gabdhaha ay ku aamusan yihiin wiilasha ay ku aamusan yihiin waay labadii gabdhood oo curadkeeda iyo curad ku-xigeenkeedana waa la guursaday naagtaas maclimada oo gabadha maskiinta ah saacidaysa waay walaashan kale waxay weydiinaysaa yani aadaa kuu qoomamayna aan kuu fiirinaa asraartaas yani ay rabtaa inay u dhabagasho ay ogaato macalimadana walaasheeda way aga sheekaysay waxay tiri aniga halkaas shay xasuusta oo gabadhaas aan ku mashquulay maalin maalmaha kamid ah waxay tiri walaashii sheekada wadaa maalin maalmaha kamid ah waxay dhahday sida loo joogay 20 sano markay ka soo wareegtay anina adduunyadeeda aan ku mashquulay gabadhan adduunyadeeda kale ay ku mashquushay waxa dhacday leedahay xaflad taqaacuda la sameynayay macallimiintii markaas fadhiisanayeen oo iska fadhiisanayeen aniga gabdhahayga laba la ii guursaday xaflad taqaacudka aan waxaan ku soo arkay leedahay naag macallimada ama gabar macallimada u weynaatay oo maasha Allah tabaaraka Allah aniga iyada ma u maleynin oo maxaa la dhahaa min almunadimaat ama dadkii diyaarinayay xafladay kamid tahay gabadhii maskiinta ahayd oo aan saacidi jiray markaa meesha ku arkay way ugu soo booday way oysay gacanta iga shumisay yaa abla see tahay ma i fahmin miyaa aniga hebla ahay maya ma ku fahmin maasha Allah tabaaraka Allah waa salaamay quruxda iyo maasha Allah shaqliga ka muuqato iyadana macallimada ay noqotay meesha aniga xafladda la iigu sameynayay oo
mutaqaacidaadka ama meesha aan macallimiinta fadhiisanay aan ka mid ahay ee gabadhii imaatay iyada ay fahantay maasha allah tabaaraka allah ani ma aan fahmin way isku kay sheegtay ee dhahday gabadhii maasha allah way ooysay waxay dhahday yaa abal ayeeyday inay ku aragtay jecleed laakiin alxamdulilah ilaahay ma kasin maanta anaa ku arkay wax badanaan ku raadiyey waan ku waayey maclimadii la hadlaysa oo sadaqada siin jirtay oo shakliga ka badashay oo midabka ka badashay oo timaha u sameyn jirtay oo wax walba u soo gudi jirtay yacni wax walba u soo gudi jiray dhahday ilaa taqriiban 3 sano gabadhaas ku mashquulsanay kadibna waa la kala dhumay oo qof walba dintiisa u baxay 20 sano kadib aniga fadhigii xaflad taqaacudka gabadhii ku arki doonaa markaas waxay leedahay ayeeyday maasha allah way ku duceyn jirtay kulli salaad magacaaday soo qaadi jirtay kugu duceyn jirtay aniga xaj aan soo xajiyo cimro aan soo cimreysto oon tago oo mar walba aan tago ma ku iloobi jirin salaad kasta iyo siyaam kasta ama soom kasta oon soomo oo sunno ah ama fariide ah ma ku iloobi jirin intaan sana aan kala maqanahay waxaan kugu duceyn jiray ee dhahday ee leedahay gabadha ilaahay inuu ninkaada iyo awlaadaada iyo gurigaada iyo naftaada ku aslaxo oo huduu ku siiyo maasha allah tabaaraka allah sida aan ii bedesho inuu ilaahay kuu bedelo oo dadka aaga doorsanaantid saasaa kugu duceyn jiray ee leedahay gabadha aniga walaasheeda u sheegaysa waxay leedahay qabiicadaas ma ogi wax kale ma ogi weligaa maba noo sheegin ay leedahay walaashay kala wareysanaysa waxay dhahday yacni inaad dad u sheega ma ugu talagalin xataa macallimiinta inaan waxaas ani u sameeyey oo gabadhii markii dambe xan waa la xaman jiray way isbedeshay waxay noqotay gabar oo maasha allah min almushaarikiin ay noqotay oo mar walba diraasada ama su-aalooyin markii la isweydiiyo waxay kasoo shaarigtaa ama su-aalaha way ka jawaabtaa dharka waa ka bedelay shandooyinka ama boorsooyinka iskoolka waa ka bedelay yacni macallimiinta xanta lay maqli jiray mugii ani hal maclimad waxay dhahday war ma ku darsan jirin yacni maclimadaas oo facal kheyr ka sameynayso maasha allah tabaaraka allah walaashii waxay leedahay aniga halkaas ficil kheyr bas aa sameeyey wax kale oo fahm oo xasuusanahay ma lahan mumkin taasaa ilaahay igugu toosiyey gabadhiina waa arkay leedahay 20 sano kadib waxay tiri xaj kasta oo soo xajiyey cimro kasta oo soo cimreysto xaalkayga saas uu ahay oo adiga leen kuu duceynaa ayeeyadeyna iyadoo kuu duceynaysa ay dhimatay marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay samayso wax la dhaho qabii'a samayso wax la dhaho wax kuu qarsoon hadaa samaysato adduunyada hadaa kula liibaan aakhira kula liibaanaysa maasha allah tabaaraka allah wax yar oo noqota rabaa inaan ku soo daro hadda ka hor aabahay anigii dhalay xanuunsaday isbitaal oo galay markuu isbitaalka galay yacni muddo ku jira taqriiban adii bil inta ka dhaxlay camal markuu aabahay dhintay qabiicada rabaa inaan ka hadlo ama waxa sirta adig ku ah goormee la ogaanaa markuu aabahay dhintay waxay imaadeen islaan guriga imaatay iyo nin mu'adin gurigeena imaaday oo Soomaaliya ka hadlaya maasha allah ninka wuxuu soo weydiiyey masruuf oo aabahay siin jiray oo ninka mu'adinka masaajidka aabahay kusoo dukan jiray masruuf oo siin jiray cidaasne masaariif oo agoon ilma cid agoon haysato oo xaafada degan oo asaga oo soo arkay oo soo tabeen oo soo raadiyeen ahayd marka maasha allah tabaaraka allah qof walba oo muslim ama gabar walba waxa fiican in ilaahay aa ku xirnaatid oo qabii'a siisid anaga qisadaas waxa ugu soo daray oo ani aabahay qusayso yacni maalinna lama maqlin walaa hooyaday ma ogaanin walaa walaalahay ma ogaanin goormee la ogaaday markay ayaga soo tabeen dadkaas ay soo tabeen ay soo gurigii imaadeen la fahmay marka maasha allah tabaaraka allah qofka bini'aadamka aad ay u qurux badan tahay inuu qabii'a samaysto qabiicadaas ama wax u qarsoon asagii ilaahay ka dhaxeeyo qabiicadaasna waxay ku anfacaysaa adduunyadaada thumma aakhiradaada ay ku anfacaysaa maasha allah tabaaraka allah maanta markay qisadaas soo dhageysta aad iyo cajibisay waxaa jeclaystay inaan idinla soo waraago oo maasha allah tabaaraka allah idinla soo shaariko qof walbo sadaqada baxsata oo sheegtay waxaa ka qurux badan wax qarsatay laana maalina kaliya meel lagu geynayaa وهلا ربطا إن ما شاء الله إلهي كبحيا ربطا مالنا مصيبة كوسو دقيس إنه إلهي مصيبة سكاب بحيا ربطا ما شاء الله تبارك الله قبي أذا هذه أقرح بدن تاي حقها تقبي أذا أما وح قرسوني هذا مالين تعلي ما تقنا الأوجا هذا تاسي أقرح بدن تاي هذا قبيدا ولا شيء وحين وغشة كيسي يعني نبك قبيدا اسكو جرت إيه كبحسي هالكاس شيء أحسوس تاهي لهذا ساسو ريركي وتوسي يعني اللح قبلود وهالقبر laga qoomameynayo ee kasoo dhex noqotay tan aabahayna waxa ugu soo daray goormee lagu ogaan karaa hadii oo maasha Allah tabaaraka Allah qabii'a ay ku jirto ama wax ay ku qarsoon yihiin marka dhimatida lagu ogaanaya markaasna qalaas adigii ilaahay xirigii idin dhaxeeyay waa fulisay oo maalinta dhimatay lagu soo tabi doora yaanu ku
kusoo tabi doono dadkii markaas aad facal kheyrka u samayn jirtay ama meeshii shalay aa ku xirnayd meeshaasaa lagaa soo tabayaa marka gabaryahay waxaa ku leeyahay ama weliyo fiirsanayo qabii'a samayso ama wax kuu qarsoon yacni wax sadaqayso gurubiya wax ku darso wax ku darso wax aan la ogeyn oo kaleetana samayso way kuu qurux badnaanaysaa adaa ilaahay kugu asturayo dadka ku qoomamaynayaan hal ladayka qabii'a wax qarsoon oo adiga ilaahay idinka dhexeeya ma jiraa qof waxaa noqonaysaa waxaad kuwi min alfaa'iziin waxa adi u baahan tahay ilmahaad u baahan yihiin naftaada u baahan tahay naftaada ma ka qabatay meel kale ma ku samaysaa rabbiga fatxuu kugu furaya marka maanta qisadan waxay ku saabsaneed ka faa'iidaysiga adigii ilaahay waxa idinka dhexeeya dhexdiina inaad qarsatid ayay ku saabsan tahay maasha allah tabaaraka allah ramadaan kariima idin leeyahay wakullu caam wa antum bikhayr insha allah qisadaas aan kasoo sheekeeyo 6 gabdhood isla dhashteen iyo kista aabahii aan kusoo daray maasha allah qof walba waxaa leeyahay intii dhimatay ilaahay u naxariista asaga allah u naxariisto igu soo duceeyay intii dhimatayna allah u wada naxariisto Soomaaliya oo allah u naxariisto annagana maalinteena allah noo naxariisto kuna dadaala maasha allah tabaaraka allah ina qabii'a samaysatid ama wax ku qarsoon aa samaysatid insha allah 3 riyaal ha noqoto insha allah $1 ha noqoto lacagaha islaameed ilaan anaga waxaan nahay dad oo mutaqarribiin ahay ama waxaan nahay muqtaribiin ahay ama waxaan nahay dad oo wadamo islaameed joogo waxa aan doolarka iyo riyaalka aga hadlayo haddii oo maasha allah tabaaraka allah 5,000 shilin wax goynayso maanta adiga ilin oge qabii'a ka dhigan karto ka dhigan ku leeyahay maasha allah maanta adduunyan waa birin aakhira lagaaga baahan yahay wixii shalay maanta aa baxsatay birin adduunyan ku cuntid marka maanta qisada meeshaas aga baxaya oo ku saabsaneed maasha allah tabaaraka allah oo ahayd adigii ilaahay waxa idinka dhexeeya ma jiraa oo qabii'a ma jirtaa maasha allah tabaaraka allah salaatu ala rasuulillah macluumaadaas waxaa ka faa'iiday aniga waxa la qarsado oo adigii ilaahay basli as ogtiin in wax badan aan ka faa'iidaysid in ilaahay faraj kugu furaayo in ilaahay awlaadi reerka kugu asturaayo marka qisadii maanta meeshaas aga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.